waxaan maalmahan aan maqlaynay waxay tahay dad bulshada caanku ah la yaqaano ama dad aanan la aqooninba oo ku geeriyooday cudurkan hadda socda corona. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga ha u waasiciyo. walaalayaal dadka u ducayno sababtoo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay uu tilmaamay haddaad adiga u ducaynaysid qof kale mu'min ah adigana malaa'igta ayaa kuu ducaynaya marka dhaadid ilaahay u naxariiso malaa'igta ayaa waxay leeyihiin waxay tahay ilaahay asigana u naxariiso. walaalayaal u ducayno inta xanuunsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo. ilaahay caafimaad degdega sii aamiin. walaalaha kalena waxaan leeyahay waxay tahay dhammaan aan dhageysano talooyinka ay bixinayaan wasaaradaha caafimaadka gaar ahaan dalka aad joogtid. arrintan waa muhiim. meel walba aad joogtid dhageyso talooyinka ay bixinayaan si aad u badbaadid, si caafimaadkaaga iyo noloshaada ay u badbaado. dhageyso talooyinka ay bixinayaan wasaaradaha caafimaadka dalka aad degan tahay si aan u badbaadno bulshadeena u badbaadino insha Allah taala. mahadsan.